Manchester United oo go'aan rasmi ah ka soo saartay mustaqbalka Rashford. Manchester United ayaa go'aansatay inaysan dib ugu soo celin Marcus Rashford kooxda xilli ciyaareedka soo socda, iyagoo qorsheynaya inuu ka tago kooxda xagaagan. Aston Villa ayaa loo arkaa kooxda ugu dhow ee la saxiixan karto xiddigan. Sababaha ay Manchester United uga quusatay Rashford waxaa ka mid ah: 1. Hoos u dhaca qaab ciyaareedkiisa. Kadib xilli ciyaareedkii 2022-2023 oo uu dhaliyay 30 gool, Rashford wuxuu la kulmay hoos u dhac weyn oo qaab ciyaareedkiisa ah, taasoo keentay in la isweydiiyo mustaqbalkiisa kooxda. 2. Dhaqanka iyo anshaxa. Waxaa jira walaac laga muujiyay hab dhaqankiisa iyo anshaxa, iyadoo la sheegay inuu leeyahay waxyaabo ka mashquulinaya kubadda cagta, taasoo saameyn ku yeelatay waxqabadkiisa garoonka. 3. Xaaladda dhaqaale ee kooxda. Manchester United waxay doonaysaa inay dib u dhisto kooxda, taasoo ay ku jirto iibinta ciyaartoyda mushaarka badan qaata sida Rashford, si loo helo dhaqaale lagu soo iibiyo ciyaartoy cusub. Isku soo wada duub, hoos u dhaca qaab ciyaareedkiisa, walaaca laga qabo dhaqankiisa, iyo baahida dhaqaale ee kooxda ayaa sababay in Manchester United ay go'aansato in Rashford uu ka tago kooxda xagaagan.